Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركين waa practice waa wada shekaysi between u dhaxeeya boy and girl wiil iyo gabar by phone oo ku wada hadlaya telefoonka. waa practice-kii aynu soo qaadanay talaadadii hore ama salaasadii hore qaybtiisii koowaad aynu soo qaadanay part 1 inanta lagu daadinayay oo uu wiilka ku daadinayay. part 2 qaybtii labaad aynu qaadanaynaa. together please aynu wada socorno fadlan. girl inantii ayaa bilowday. labada casharna isku soo xidh ardayow. girl inantii baa bilowday hadalkii. waxay tiri dear qaali why are you angry maxaad u xanaaqsan tahay maxaad u caraysan tahay like this sidan oo kale. please fadlan tell me ii sheeg if I made haddaan sameeyey any mistake wax qalad ah I apologize you waan kaa raali gelin doonaa honey xabiibi. dear qaali why are you angry maxaad u xanaaqsan tahay like this sidan oo kale. please tell me fadlan ii sheeg if I made haddii aan sameeyey any mistake wax qalada I will apologize you waan kaa raali gelin doonaa honey xabiibi. boy wiilkii I think waxaan u maleynayaa you are deaf inaad tahay dhagool because maxaa yeelay I told you everything wax kasta waan kuu sheegay. I think you are deaf waxaan u maleynayaa inaad tahay dhagool because maxaa yeelay I told you everything wax kasta waan kuu sheegay. girl inantii I really don't know run ahaantii ma garanayo what to do waxaan sameeyo because maxaa yeelay I trusted you a lot wax badan ayaan ku aaminay adiga. you have the habit caado ama dhaqan baad u leedahay of biting inaad qaniinto the hand gacantii that feeds you gacantaasoo ku soo quudinaysay adiga. but laakiinse remember one thing hal shay xasuusnow one day maalin you will cry waad ii ooyi doontaa for me aniga like I cried you today sidaan maanta kugu ooyay adiga. and I will never lose you my time waqtigaygana kuguma lumin doono. you are really cheated me run ahaantii waad khiyaantay. I am sorry to believe you waan ka xumahay inaan ku aamino adiga but laakiinse it's a lesson for me cashar bay ii tahay aniga. goodbye nabadgelyo. girl inantii I really don't know run ahaantii ma garanayo what to do waxaan sameeyo because maxaa yeelay I trusted you a lot wax badan ayaan ku aaminay adiga. you have the habit dhaqan iyo caadaad u leedahay of biting inaad qaninto the hand gacantii that feeds you gacantaas oo ku soo quudinaysay. but laakiin remember one thing hal shay xasuusnow one day maalin you will cry for me maalin baad ii ooyi doontaa like I cried you today sidaan maanta oo kale kugu ooyay. and I will never lose you my time waqtigaygana kuguma lumin doono. you are really cheated me run ahaantii waad khiyaantay aniga. I am sorry waan ka xumahay to believe you inaan adiga ku aaminay but laakiinse it's a lesson for me cashar bay ii tahay aniga. goodbye nabadgelyo. boy wiilkii you have one problem hal dhibaato ayaad leedahay. that problem is dhibaatadaasina waxa weeye you can easily trust si fudud ayaad ku aamintaa anyone and everything wax kasta iyo qof kasta
Somali proverb says mooma Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa think before you act ka fiirso intaanad falin soo sidaa daraaddeed do not believe everyone qof kasta ha aaminin that's my advice taasi waa taladayda waa waanadayda let me tell you something waxaan kuu sheego as you know sidaad og tahayba sugar and salt sonkorta iyo milixda ama cusbaduba are the same color waa isku midab but laakiinse they are different waxay ku kala duwan yihiin waa sonkorta iyo milixdii waxay ku kala duwan yihiin taste dhadhanka you have one problem hal dhibaato ayaad leedahay that problem is dhibaatadaasi waxa weeye you can easily trust si fudud ayaad ku aamintaa anyone qof kasta and everything iyo shay kasta Somali proverb says maama Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa think ka fikir before you act intaanad falin ka fiirso soo sidaa daraaddeed do not believe everyone qof kasta ha aaminin that's my advice waa waanadeyda let me tell you something shay aan kuu sheego waxaan kuu sheego as you know sidaad og tahayba sugar and salt cusbada ama milixda iyo sonkortuba are the same color waa isku midab but laakiinse they are different taste dhadhankay ku kala duwan yihiin waa run new words ereyada cusub een practice-keena ka soo saarnay angry waa caro mistake qalad apologize raaligelin deef dhagool trust aaminaad habit caado ama dhaqan biting qaniiniyo feedis quudin remember xasuus cry oohin cheated khiyaamo believe aaminaad easily fudud same isku mid ah test dhadhanka In case I don't see you, good afternoon, good evening. Yeah.